abaheed maadaama aysan ka tagin wax dad waxaana loo cuskaday aayadaha quraanka walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun ولكم وحيد ليه في القصاص حياة ولكم وحيدين سجنا في القصاص حياة النور يا أولو الألباب دتك عقل صاحبكم لعلكم وحد تتقون إلى الحبستان يا أيها الذين آمنوا وآيات اللبات يا أيها الذين آمنوا كوبا الله إن بربيو كتب وعلى فرض يعني عليكم كركين القصاص في القتل الحر بالحر قفك حركة إلا دل في القتل الحر بالحر قفك حر إلا دل لما كل ريبن نين يناق لما كل ده قفك هدو حر يا أو قفك حر ديو أما ناق هادلو أما نين هادلو دمبك كيسك هل دل أمبايمانه طبعا نين هذا هل ناق دل كده سكوت تان ويكس أي نقط طبعا كم والود دل هي شرع الإسلام والعبد بالعبد أنا أدون دي ما هنا أما أدون هذا أن لنا هبل وأدون وهبل وأدون ما هنا والأنثى بالأنثى ناق والود لها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا متعمدا نن إسلام هدله دفع إلى أولياء المقتول دكيسة ننكل الدليل dadkii sawaaridka ayaa loo dhiibaya fa in shaa'u qatalu wa in shaa'u akhadhu adiyat haday doonaan way dilahayaan haday doonaan diyay ka qaadanayaan waa doorsiin oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu doorsiyay xukunkan sidaas ayuu ku dhamaaday ninkaas waa dil wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka reer Garbaari iyo isugu timaadii taalada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga ee ku soo dhagay gacan ku dhiglahan gacanta dhammaan waxaan filayaa marka dadka la isugu yeero taalooyinka ama shirka loo soo baxay yiraahdo inta la isugu imaan jirin bariyahan laakiin maanta waxaan filayaa dadka ayagoon aad loo wacyi gelin oo hadda microphone la dhaxkacay way soo wada baxeen waxa kale oo ogtiin dadka shari saldhiga iyo magaalada ka dhaxaysa in dadkii ay hergeli waayeen oo ninkaas ayadoo la dhihin waa la diliyaa si caadi maamulka aysan u soo jeedinin inay dadka taagnaayeen arinta waxa keenayana waad garan kartaan oo waa ninka gacan ku dhiglaha oo sida daran gabadhu dilay waxaad ogtihiin ama halkan inay ka jiraan aad ogtihiin qabiil ma waxa ka jira waa dawladda maxaan ku raadaa wax meesha joogo ninkan waa la qabtay waa la xiray dadkan hadaanan xog buuxda la siinin waxa laga yaabaa inay si kale u warramaan ninkan waa la xiray gacanta lagu dhigay dadka dhali iyo dadka gabadha dhali way isugu yimaadeen عدي ما كقرن دمانتود لبضة قويبات بكوب جوار دالي كوب ويل كداليبا صحيح يعني كقاني إن محكمة الإسلام كله قد يسلقاتين محكمة ديانو قد بندي محكمة الإسلام كان وحيصو صارتي حكم كدلكا وهذا دقيسين يسن ويكون عسيين دمان إسلام كورن وكون عسي هاي نكان كون عسنا نعيد قاضي يسمى جرتنا وحنفلوني نهدانا ما ملكي يسراكيشي يدمان بلشدي العلماء ذبا وحكم كاس أي صوص صارتي كتاب كلاهي قف كستب إنه كوكان عنه ولوبه هي المرك حكم كود عي علماء ذو حيسوج دي سي نك ويل كده ليسدح بقى بنان إنه مقاطع إنه عفس قاطع إنه معاكل هذا دش نك جبارة دليل وحونا قاطي إنه وحدش هدول مرك ماشي دلك كسر بحي أنا وحن هقولن هاي معمولكي إنا فلنا adduunku waxa la yiraahdaa sixun waran sixir ka daran dadka waxa laga yaabaa in si daran loogu warramayo ninkaas uu xiran yahay ciidanka dawladda gacanta ku haya sida nimanka shabaabka u fakiyeen in loo fakiyo hawo loogama qaba hadda waxaan maqlay shabaabku markay fakiyeen oo ka fakaday lacag ay ka qaateen oo waa iska fakiyeen
oo taliyihii saldhigee iyo 5 nin oo kalaan u yeelnay inuusan fakarin ilaahay baa badbaadin kara ama ilaalin kara laakiin taliyihii saldhiga iyo 5 nin oo kala u taagan habeenii maalin la jiifta inay ilaaliyaan oo ammaankiisa ay sugaan fakasho kagama hawo qabna dad meel iska taagan ma nihin dawladdii la xukuntay saad ogtiina qofka haddii la diliyo oo qof naftii la goynayo oo dawladda ay goynaysa waxaa goyn kara oo saxiixi kara madaxweynaha dalka Soomaaliya dalkana madaxweynuhu leeyahay dawlad goboleedkan anagu u gudbanay madaxweynihii Soomaaliya warqada loo diray waa loo gudbiyay waxa sugaynana waa jawaabtaas marka la hela in lagala soo baxa meesha lama diray waxaana filayaa hadda haddii la raali ka noqdo ama sidii dawladda ay ahaan jirtayba dilkaas uu ku dhici doonaa in dawladda ay fuliso oo qof shakhsi uusan fulinin ninka gabadha dhalay asaga qasqaast iska leh laakiin wuxuu wakiilan karaa dawladda Soomaaliya kitaabka sheegaya waxaan door ka soo qaadanay maha culimadan weydiinay